Soomaalidu siyaasadda waxay u taqaanaa shay xun, waxay u yaqaaniin khiyaamo, wanjalaad iyo wax isdabamarin. Siyaasaddu sidaas maaha, laakiin waa sida ay Soomaalidu aragtay. Waa tan abwaan Jaamac Kadiye ka warramay maansidiisii dheereyd oo aan meelo kooban ka soo qaatay. waxaan ima siyaasad baa subxaanya lagu metelay, intaa way soconaysaa. Siyaasaddu waa laba mid deer Soomaaliyeed sideedaba waa nuxuus. Markuu dhiig wada susumo iyada subag bay u tahay, safeen goortay noqdaan sariir bay qaadataa. Qofkii samir iyo dulqaad ku sugan bay colaadisaa. Fal iyo sixir bay dhashaa, sadhiyo cudur bay dhashaa, sun iyo boog bay dhashaa, midiyo sararay dhashaa, midaan sadku deeqinoo sibraaro watay dhashaa, saxal iyo dembi bay dhashaa, balaayo sakay dhashaa, dadkay sakaraadisaa, waxbay sinjidoorisaa, sokeeyaha wada dhashiyo saaxiibkay kala dishaa. Qofkii seeraheeda gala su-aashuu diidayaa, isagoon hadalkaaga sugin ayuu laba sikin dhexdood wuxuu soo celinayaa mid aana sidiiqi karin. Sibuu wax u eegayaa, sanyaaluu bixinayaa, gacmuu saydhsaydhayaa, waxbuu suuraadinayaa, wuxuu saadaaliyaa midii loo soo sajilay. Maxay sawir muujisaa waxaa ummad laysa suray ayay sababtooda tahay.